waxaa bilowday dagaal kharaar oo u dhexeeya shirkadda Apple iyo Android ama aan niraahno xalliyaha caddaanka. intiina badan waa taqaanaan Android waa 36 jir milyaneer ah oo haysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Ingiriiska. wuxuuna ahaa feeriyahan hore oo ciyaarta kickboxingka. ninkan ayaa si weyn u soo caanbaxay sanadkii hore ee 2020 wuxuuna noqday qofka saddexaad ee adduunka ee loogu baaritaanka badan yahay Google-ka. ninkan ayaa muuqaaladii uu soo gelin jiray TikTok-ga waxaa daawaday dad ka badan 11 bilyan oo qof. sidoo kale malaayiin qof ayaa ku xiran social media-hiisa kale. laakiin hal subax ayuu soo toosay isagoo dhammaan laga xiray akoonnadii ku lahaa social media walow waa dhaweeto Elon Musk uu soo sii daayay akoonkiisa Twitter-ka. waxaa lagu eedeeyay ninkan inuu yahay nin aad dumarka u neceb oo colaadiya, laakiin isagu wuxuu ku dooday kaliya inuu talooyin iyo waana siiyo ragga, gaar ahaan ragga dhalinyarada ah ee markaa soo kacaya ee adduunyadu u cusub tahay. wuxuu ku doodaa ninkan in ragga dhalinyarada ah ay iska jiraan dumarka shaqadoodu tahay inay ragga lacagta ka furtaan oo ku dadaala ninka inay shilinka ugu dambeeya jeebkiisa kala soo baxaan. wuxuu sheegaa in ninka dhalinyarada ah ay tahay inuu naftiisa iyo mustaqbalkiisa dhiso, joojiyana daba orodka dumarka. ninkan hadaladiisa muranka badan dhaliyay waxaa ka mid ah in uu mar yidhi gabarba gabadha ay ka da'yar tahay way ka qiimo badan tahay, wayna ka fursado iyo suuq wanaagsan tahay. yacni waa hadal macnihiisu yahay adiga oo heli kara inaad guursatid gabar 18 sano jir ah ha guursan gabar 20 sano jir ah, ama adiga oo heli kara inaad guursatid gabar 20 sano jir ah ha guursan gabar 30 sano jir ah. hadalkan markuu yiri ninkan buuq badan iyo carab badan ayuu ka dhaliyay qaybo badan oo kamid ah wadamada reer galbeedka iyo warbaahinta reer galbeedka. dhanka kale ninkan ayaa ku eedeysan dhowr kiis oo kufsi dumar ah iyo inuu si khaldan gabdho yar ah uga faa'iideystay. waa yahay aan u soo noqono dagaalka ka dhex qarxay shirkadda Apple iyo Android iyo sababaha keenay. Apple ayaa App Store-keeda waxay ka saartay oo ka delete garaysay application uu lahaa Android oo lagu magacaabi jiray Real World Portal. Apple oo ka falcelinaysa dacwad ay application-kan ka soo gudbiyeen ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegtay in application-kan uu Android ku faafiyo fikrado dumarka lagu colaadinayo, sidaasna ay u delete garaysay. sidoo kale shirkadda Google ayaa Play Store-keeda app-kan ka saartay. dhanka kale Android ayaa wuxuu ku dooday in application-kiisa oo dadka isticmaala ay rag u badan yihiin dumarna ay ku jiraan in bishii ay iska bixiyaan $49 isaguna oo halkaa kula wadaago talooyin nolosha ku saabsan. tusaale ahaan sidii ay hanti u tabci lahaayeen, sidii ay jirkooda u dhisi lahaayeen, sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha kala duwan ee nolosha. yacni ninkan wuxuu leeyahay raggu halkii ay dumarka daboodi lahaayeen waxaan u sheegaa qaabka ay mustaqbalkooda iyo noloshooda u maalgashan lahaayeen. su'aal yar oo kooban: fikradaha Android uu ku faafiyo baraha bulshada iyo mashruuciisa adiga ma kula saxan yahay mise waa kula khaldan yahay?